وسؤال داويني دلك يا إسكالي وسؤال داويني دلك يا إسكالي waxaan baaq u diraynaa cid kasta oo muxsiniin ah hadday tahay maamulada iyo hadday tahay hay'adaha iyo hadday tahay qurba joogta iyo cid kasta iyo hadday tahay ganacsatada cid kasta oo khayrka jecel inay ka qayb qaataan wadadaas isku xidhaysa labada gobol waa wado aad iyo aad runtii waxa weeye muhiim u ah oo marta deegaano dhowr iyo waxa weeye 10 waxa weeye magaalo marta wadadaas labada gobol ah ee boqolka iyo dhowrka kiiloomitir ay aad aragtaan waxa isu xilqaamay dadkii deegaamada deganaa ee shacabka ahaa runtii fayskii hore bay dhameeyeen oo ah oodqaadkii ayay dhameeyeen iyo cabirkii wadadii toosan waxa ku xiga jaygii iyo laamigii waxaanu sugaynaa oo aanu dareebaynaa ama naga maqan doorkii aad ku lahaydeen waxaanu idinku codsanaynaa inaad ka soo qayb qaadataan wadada shacabkana waxay go'aan ku qaateen oo gudsiga dhiishiisa ka dhigeen inay wadada waxa weeye ay la baxaan halkaana way marinayaan dhammaan dadka muxsiniinta ah iyo cid kasta oo khayri ah iyo hay'aduhuba waxaanu codsanaynaa inay ka qayb qaataan sadaqada jaariga ah ee soconaysa qofku intuu waxa weeye ilaa xitaa xilligu dhinto soconaysa waxa wadada oodqaadkeeda iyo hawsheeda bilaabay oo dhammaystiray dad shacab ah oo dadka deegaankan u dhashay kamid ah ayaa bilaabay waxa weeyaan hay'ad iyo dawlad iyo maamul iyo cid kale oo gacan ka geystay ma jirto waa isku tashi bulsho deegaanka oo dadka u dhashay oo isku tashaday ayaa hawsha qabtay haddana waxaan leenahay fayskii labaad bay u gudbaysaa ee jayga ahaa cid kasta oo wax ka qabanaysa oo wax ku darsanaysa muruq iyo maal iyo maskax waa ku soo dhaweynaynaa way u daahfuran tahay cidna lagama laha wadadaas waa wado muslim waa wado Soomaaliyeed waa wado ay isticmaalayaan inta ugu badan dadka deegaamada u dhashay waxaan leenahay cid walba ku soo dhawaad marka hore waxaan ka hadlayaa hawsha muslimka iyo hawsha dhuunta magaalada ee ay maaragtaa dadku ka indhalaa maantana ilaahay ragii u soo jeediyay rag iyo dumarba inay nala qabataan dibadda dalka dawladda Soomaaliya iyo kuwa dibadda jira ee qurbaha iyo kuwa awalba shicibba hawsha galay in meel walba nala ka caawiyo oo loo gidadaalo qof waliba halkiisa ka xusliyo oo dhuunta la sameeyo dhuun lagu cadilaa weeye dhuun loo baahnaa weeye dhuun maanta la ogaaday weeye dhuun wadna gariira weeye oo gawaarida iyo dadkuba ku halignaa waxaanu rabnaa in loo dadaalo qurbuhu u dadaalo oo dadka dawladda ah ee dadka dawladda weyn u dadaasho oo nimba meeshu joogo xilka iska saaro oo akhriya adduunka loo shaqaysto waan rabaan fayska labaad in laga diyaar garoobo oo dadka muxsiniinta iyo dadkii arrintan soo fikiray ama ka soo shaqeeyay ama maal iyo maskax ku bixiyay halka ka sii wadaan bay odayaashu codsadeen anana waa ku taakiidinaynaa dadku gacmo furan bay ku soo dhaweynayaan wadadaas waxaan u sheegaynaa dadka samafalayaasha adduunka islaamka iyo khayru islaamba wixii wax kula baxaya inay tahay wadada khayriga ee furan dadka bulshada dhulka ku nool ay isticmaalayso iyo wixii kale ilaahay u qadaro ciddii wax kula baxday waxaanu leenahay wax qabadkii aad la soo baxdeen waad aragtaan ilaahay ajar iyo xasanaad hadii ka siiyo wixii dambena waxaynu bilaabaynaa fayskii labaad carrada aynu dhigaynay iyo maartay carra jay garayntii waynu wadaynaa hadii ilaahay idmo u soo dadaala dadka deegaamada ku nool dhamaantood oo mahadcelinaynaa rag iyo dumar bulshada dhulka ku nool gobolada SSC ku noolna dhamaantood waxaan ugu baaqaynaa inay iska kaashadaan horumarka sida ay ugu soo jeesteen iyo wadooyinka iyo waxbarashada iyo nabadgelyada waxaanu kale oo halkan baaq uga diraynaa balaaran cid kasta oo haday hay'ad tahay iyo haday maamul tahay cid kasta oo islaam ah iyo ciddii kale cid wax taakulaysaba dhamaantood inay dhibaatada wadooyinka ka haysata iyo horumar la'aanta bulshada deegaamada ka haysata inay kala qayb qaataan maadaama ay u soo jeesteen inay horumarkooda ka shaqeeyaan